بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, let's come to our lesson. Today our lesson is inshallah waxaan ka hadlaynaa strain shayga la dhaho. And strain means waxay ka dhigan tahay when a body is deformed. And bodygaagu ama shaygani markuu deformed noqdo ama uu deformation ku dhaco ayaa la dhahaa. The sign calaamada of the strain is marka sig or sigma calaamada weeyaan marka epsilonta loo yaqaano marka calaamada loo yaqaan hadiya jeer marka strainta waxa lagu wada deformation to the original length isbalada deformation kan aan haysana ama original to understand si aanu faano the strain ka draw the diagram figure waa inaan sawiro tensile loading mandaan load kan aan haysano horey baan soo wada baranay waxaan kan waxa loo yaqaanaa baan tensile loading kalku waa load kan ku dhacay marka waa tensile loading hadiya jeer qaabku isbedeli jiray oo elongation ba ku dhacanay after elongation it's look like this marka diagram kaagu sidan uu noqonaya marka elongation lagu sameeyo oo the bowling shaygan uu dhankan u jeedo kan noo saan bowling karay marka load kan bowling karay marka uu faaxinaya uu dheeraanaya kabacdi markuu shaygan elongation noqdo qaabkan uu yeeranaya diagram kana kugu tusaya waa markuu isbedelay kabacdi marka section kaagu halkan ayuu ku development garoobaya halkan ayuu section kaagu development waa kan marka section kaagu uu dheeraaday cashirka horaan soo barnay laakiin marka muhiimadda ay leedahay waa inaad ka nafaatid xaggan b weeyaan xaggana waa b labada load kabacdi marka hadiya jeer waxaan u baahnahay sidee baan ku heli karnaa formulada ama calculationka shaygan loo yaqaan strain hadiya jeer marka hore lengthigu l buu ha waa kan l kii laakiin function kan ku soo kordhay uu batay markuu batay dheerarkan ku imanaya muxuu noqonayaa marka waa lentiskii aan haystay oo loo geeyay changementiga intan isbedeshay changementigu waa intan changementigu ku imaaday weeyaan changementigu intan uu ku yimaaday ayaa isaga la oranaya kabacdi marka waa lenti oo lagu tiray changement l intan marka delta l tan for that case marka deformation waxaan ku heli doonaa final lentiskii marka finalka ah ee u dambeysay waa tan dhararku ku yimiday lenti plus changementiga laga jaray initialki iyo originalki lenti kabacdi marka waa l oo waa lenti plus deltadan waa intan aan haystay function kan oo laga jaray intan yarde la waxaan u baahanahay inaan ogaano inta uu deformation ku yimidey marka inta deformation ku yimidey lentigii aan haystay iyo inta deforming oo la isku daray marka aan kala jari initial kan ka jari oo lentiskiisii yaal kabacdi lenti kala jar changement of l ba soo baxday oo deformation marka idan marnina waa straintiska ama epsilonta labada magac baa loo kala yaqaana for that is equal to deformation of the original length hadiya jeer waa deformation kii oo waxaan aan soo helaya to the original length iyo original lengthigii uu iska lahaa section ka waa salahaan kabacdi marka changement of l over l hadiya jeer greater than 0 for that case is a positive increase in form way marka aad bay kordhaysaa marka maadaama waxaan ever ka weyn tahay maxaan taa ku garan karnaa shaygani waa intention baan niri tensile strain maxaan niri positive form weeyaan waa kan formkaaga ku cadaynay it's called increase marka tensile strain tiidu waa tensile iiduna waa maxay strain tensile strain changement of over l bargula compressive markay noqoto the function kan developed ka halkan ku ah ayaa yaraan doona kabacdi markuu yaraado muxuu noqonayaa negative uu noqonayaa l minus dalta t halka balance on ba minus noqon kabacdi asha kala ka sii jar in compression kuna muxuu noqonayaa and delta l over l oo negative wadata xagga marka waxaan kaga baxaynaa cashirka loo yaqaano strainka waxa kale ee soo raaca waxa weeyaan waxa loo yaqaano shear strain waxa loo yaqaano shear strain it may be takes place torsion ba ka dhici kara for that case halkan marka hadiya jeer markuu force halkan ku apply gareeyo waxaan section caadi ah qaabkan uu bandhigaroobi xaggan isku bedeli kan kalena xaggan isku bedeli for that case there will be angular deformation xaggan calaamada file la jirta file angular deformation but this is called shear strain halbeega caadiga rodku halbeega caadiga shear strain ku waa rad hadaba marka waxaan niri strain-kaygu ahadi ajeer waxa la mid ah changement of l oo loo qaybiyay maxay la mid ahay over l kabacdi marka halbeegeedu muxuu noqonayaa waa no unit sababtu ma garanaysaa waa lentiskani hadduu meter ahaa uu kana meter by meter cancel there is no unit for that this is the reason ashirkeenu halkaas uu ku joogi doonaa subscribe iyo share ta adiguna ku qabo wixii comment ee tala hoosta ku reeb su'aalaha insha Allah iyaga iyo theory badan way jiraan laakiin muhiimadan ka raacayna insha Allah waxaan isku darnaa problems sida loo xalliyo strength of material inaan isku dayno